deeq gargaar ah oo ay iska soo ururiyeen shacabka dalka Liibiya gaar ahaan magaalooyinka Benghazi iyo Tripoli ayaa loo qaybiyay shalay dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinka Dadaab gaar ahaan xerada Ifalabo waxaana munaasabadii dadka lagu qaybinayo goobjoog ka ahaa wafdi sare oo ka socda dawladda dalka Liibiya oo uu hogaaminayo safiirka Liibiya ee dalkan Kenya Sayid Hisham Ahmed Shariif waxaa kale oo iyaguna wafdiga deeqda geeyay xerooyinka qaxootiga ee Dadaab kamid ahaa xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi hay'adda gargaarka bariga Afrika oo ah hay'ad laga leeyahay dalkan Kenya isla markaasna hirgelisay goobta lagu qaybinayay gargaarkan oo uu wakiil ka ahaa Sayid Ahmed Sheekh Khaliif Xareed waxaana hay'adaasi gudoomiye ka ah Sheekh Ahmed Nuur Maxamed iyada oo hay'adaasina ay kaalin weyn ka qaadatay isku xirka gargaarka ka yimaada wadamada caalamka gaar ahaan wadamada Islaamka iyo sidoo kale qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xerooyinka Dadaab waxaa sidoo kale isna wafdiga xerooyinka qaxootiga ee Dadaab gargaarka shalay geeyay kamid ahaa Maxamed Maxamuud Guutaale oo kamid ah madaxda sare ee guddiga ganacsatada xaafadda Islii dadka ku sugan xerada qaxootiga ee Dadaab oo ahaa dadkii ugu dambeeyay ee soo gaadhay xerooyinka qaxootiga ee Dadaab waxaa ka muuqatay diif aad u daran waxaana dadkaasi ay muddo dheer saf ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen raashinka ay ugu deeqeen dawladda dalka Liibiya oo ahaa 25 tan oo qayb ka ah 2,000 oo tan oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ee xerooyinka Dadaab ku dhaqan waxaana shacabka dalka Liibiya oo markii Soomaaliya abaaraha ugu xun ay ku jireen iyagu ku mashquulsanaa in ay wadankooda ka turaan xukunkii kaligitaliska ahaa ee Muammar al-Qaddafi ay hadda u soo jeesteen inay shacabka Soomaaliyeed wax taraan iyagoo wali xaalad siyaasadeed oo qasan ku jira qaar kamid ah wafdigii gargaarka goobta gaarsiiyay oo ugu horeeya safiirka Liibiya ee dalka Kenya Hisham Ali Shariif ayaa goobta ka hadlay. طبعا الشعب الليبي معروف عنا بالكرم وبمساعدة الآخرين وهذه ليس غريبة على الشعب الليبي. فالمؤسسة الليبية الدولية للإغاثة والمساعدات عندما أخبرت الشعب الليبي بأن إخوة الصومال يحتاجون إلى هذه المساعدات على طول لبوا هذا النداء وقاموا بالتبرع بهذه المواد الغذائية لإخواننا في الشعب الصومالي وهناك المزيد من هذه المساعدات في الطريق إن شاء الله وهذا ليس غريب على الشعب الليبي. الشعب الليبي دائما شعب مغوار شعب أبي يحب الخير يحب المساعدات وينصر الإسلام في كل مكان. يعني أعني أنه مشغول بتنظيم البقايا النظام السابق. نعم ولكن هكذا الشعب الليبي هذه اسمها حملة الإيثار يأثرون على أنفسهم ولو كانت بخصاص فهذا الإيثار يعني معروف بالشعب الليبي ليس اليوم على مدى التاريخ وبالتالي الشعب الليبي دائما هو في محنة ولكن يفكر في إخوانه الآخرين في البلدان العربية والإسلامية وهذه ميزة يتمتع بها الشعب الليبي قد لا تجدها دائما لدى الشعوب الأخرى. والله waxaan maanta ku arkay xerada Ifatu wax la qiyaasi kara maaha waa dareemaysan adceedu siday u kulushahay meeshan waxaan ku aragnay ilmo badan oo nafaqa darro hayso waxaan ku aragnay dad badan oo waayeel oo baahan waxaan ku aragnay baahi aan la qiyaasi karin laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin aad bay u fiicnaan inaan aragno hadda wixii ka dambeeyay waxaan bilaabaynaa albaab kasta oo aan dhihi karno waxbaad ugu heleysaan dadka masaakiinta ah inaan garaacno hadii ilaahay insha Allah taala ujeedada maanta aan u nimid waxay ahayd dad shacab oo Liibiyaan ah ayaa waxay iska soo ururiyeen deeq oo hordhac ah ayaan waxa ugu heliyay safarkayga safiirka dawladda Liibiya u fadhiya dalka Kenya ujeedadu waxay ahayd inaan ogaano qiyaasta iyo baahida meesha ka jirta inta ay la eg tahay laakiin waa in nagu filan ayaan meeshan ku aragnay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda waxaan ugu baryaa inuu ilaahay ummadda qaboojiyo inuu ilaahay ummadda abaarta ka saaro inuu dalka ilaahay nabad nooga dhigo ummadda ilaahay inuu gargaar u keeno. sheekooyinka dareentaabaad kale ee halkan ka jira waa hubaal qof kasta oo Soomaali ah oo Muslim ah markuu arko inuu aad uga diiqadoonayo waana takaliftay in dawladda Liibiya ama shacabkeeda oo xilligan dhibaatooyin baan ku jira ay u soo gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Maxamed Axmed Alkacsi telefishinka qaranka Soomaaliyeed Ifalabo Dadaab.